إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلaahay baa subxaanaه watacaala mahad tiro badan iskale aan la koobi karin nicmooyinka tirada badan noo galay alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin waxaan ku jiraa oo bilowgii ah bishii sanadkii cusbaa ee hijiriyada bishii muxaram baan ku jiraa bishii ugu horeysay waxaan galay 1443 ilaahay subxaanaه watacaala waxaan ka baryaynaa inuu nooga dhigo sanad barwaaqo iyo khayr ah sanad ilaahay subxaanaه watacaala khayrkana waafajiyo sanad ilaahay naga xifdiyo wixii shar ah oo dhan yani qofkana runtii waa inuu xisaabtamaa sanad baa ku soo dhaafay maxaa qabsatay yani maaragtay sanadkan cusubna maxaa diyaar u tahay qorshahaagu waa maxay yani ma sidii hore sii joogaysaa mise acmaasha saalixadaad kordhinaysaa yani maaragtay bishan muxaram waxay ka mid tahay afarta biloodoo xurmada leh oo ilaahay qur-aanka uu kaga hadlay fii suurati towba aayadda 36 ilaahay subxaanaه watacaala uu leeyahay ina ciddata shuhuur cinda allahi 12 shahran fii kitaabi illaahi yowma khalaqa asamaawaati waalarda minhaa 4 xurum baa ka mida daalika diin اlqayima 4 bilood baa ka mida marka muxaram 4 bilood bay ka mid tahay bal culummada waxay yidhahdaan iyagaaba ugu fadli badan 4 bilood ilaahay muxuu leeyahay falaa tadlimuu fiihinna anfusakum naftiinna ha dulminina yani adiga naftaada ha dulminin oo macaasi ha ku dhicin addoommada ilaahay ha dulminin ilaahay subxaanaه watacaala ha u shariig yeelin is-ilaali yani maaragta ha xadgudbin yani maaragta maxaa yeelay bishan muxaram dembiga la sameeyo waa ka daran yahay dembiga bilaha caadiga la sameeyo sida khayrka loo sameeyo kaleba uu uga fiican yahay yani maaragta marka runtii bishan inuu qofku ka faa'iidaysta ayaa fiican oo khayrka u badiyo yani maaragta waxyaalaha bishan la raba in la badiyo waa soonka yani maaragta maxaa yeelay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam xadiiskii abu hureyra muxuu ku yidhi nabiga muxuu yidhi afdalu siyaami bacda ramadaan shahru llahi almuxaram yani soon la soomo ramadaanka kadib waxaa ugu fadli badan bishan muxaram yani wa afdalu الsalaati bacda alfariida salaad la tukado faradka kadibna waxaa ugu fadli badan salaatu leyl iyo salaatu leyl rawaahu muslim xadiiska imaam muslim baa wariyey yani maaragta marka taas waxay muhim u tahay bishan inaad soontid yani maaragta soon la soomo isaga ayaa bishan ayaa ugu fadli badan soonka sunnada yani maaragta walidaalika waxaa muhima si gooniya haddaadan adigu soomi karin in badan bishan ka mida yayan ku dhaafin yani maaragtay soomu yowmu cashuuraa maalinta tobnaad ee bishan muxaram yay ku dhaafin nabiga calayhi الsalaatu wasalaam xadiis muxuu ku yidhi can abi qataada radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam saxaabigaas wuxuu leeyahay su'ila can siyaami yowmi cashuuraa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa la weydiiyey soonka yowma cashuuraa faqaala wuxuu yidhi yukafiru asana almaadiya sanadkii lasoo dhaafay oo dhan baa ilaahay dembigaa kuu dhaafaa yani maaragta maa shaa allah alxamdu lilah waa fursad yani hal maalin oo aad soontid baa ilaahay sanadkii lasoo dhaafona dembigaa kuu dhaafaa yani maaragta walidaalika dadku waxaa muhim inaan aroosada lagu aadin inaan xafladaha lagu aadin inaan lagu aadin yani maaragta casumaadiha goorma waaye marka goormay ka tahay bisha aan ku jira agosto waxay ka tahay waa 18 arbacada waay arbacada soo socota waaye maaragta sidoo kale waxaa sunnaa maalin in laga hormariyo ama maalin laga dambaysiiyo weli waxaa fiican maalin in laga hormariyo oo ah 17 in la soomo oo talaado ah yani maaragtay iyo arbacada khamiistana soon horaa loo soomi jiray sunno u ahayd yani khamiis joogta yani shahru muxaram yay kaa fakan yani walidaalika saddexdaas beriba soon 17 18 iyo 19 yani haddaadan saddexdaas isku xijin karinna yay ku dhaafin 18 yoom arbacadaas oo 18 bishan agosta oo ilaahay subxaanaه watacaala sanadkii lasoo dhaafay oo dhan uu ku dambi dhaafay yani marka runtii fursadan yani inaan ka faa'iidaysano waa yani maaragtay oo saddexdaas beri qofka u soomo yani maaragtay sidoo kale yani maaragtay waxaa ku xiga iyaguna ayaamul biid
oo ah maalmaha caddaha in la soomo oo goormo waa iyaduna waxay bilaabanaysaa sabtida waa 13 oo waafaqsan 21 agoosto axadda 22 iyo isniinta hore awalba loo soomi jiray 23 ma sha Allah yacni fursad runtii lixdaas beri waa fursad ilaahayna siiyey subxaanahu wa tacaala yani marka maxaa yeelay qofku markuu dhinto wuxuu ka shalayna wuxuu dhahayaa lacallii acmalu saalixan fiima taraktu alla camal wanaagsan maan soo sameeyo yani marka ka faa'iidaysta soonkan wa an tasuumuu khayru lakum in kuntum taclamuuna wallaahi caafimaad iyo deganaan iyo khayr soonkan baa ka helaysaa ilaahay muxuu ku yidhi xadiisu lqudsi assawmu lii wa ana ajsi bih malaa'igta qoraa la leeyahay maaragta soonkaas anaa abaal marinaya addoonkayga yani maaragta anaa abaal marinaya hal maalinoo ilaahay dartiisa aad u soontid 70 khariifan 70 dayrood sano ayaa ilaahay naarta kaa fogeyna baabu rayaan inaa ka gasho ma rabtaa jannada waxaa ku yaalla baabu rayaan yaa ka gelaya assaa'imuuna waxaad ogaataa soonka haddaa ku dadaashid yani waxyaalaha cibaadada ku fududaanaysa yani taa daliil waxaa u ah bisha ramadaan ummaddu qur-aankii akhriyaan oo khayrkii ku dadaalan oo sadaqadii bix maxaa yeele waa fadliga bishaas soonka la soomaayo marka runtii bishaan muxaram yani maaragtay ku dhaafin ilaa adoo soonkaas iyo sadaqadaas iyo camalkaas saalixa badiyey iyo maaragtay sii gaarsiina maaragta dad badan baa hurda oo aan ogeyn war xaggee la joogaa iyo maxaa lagu jiraa iyo ka faa'iiday addaallu cala alkhayri ka faacili sii faafi cajaladdan iyo cajaladaha kaloo culimmadu ay duubaan oo ku saabsan maaragtay bishaan sii faafi yani maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa attawfiiq inuuna waafajiyo oo naga dhigo kuwii bishaan muxaram ka faa'iidaysta ilaahay inuu naga ilaaliyo inaan nafteenna dulmino oo kayrkeenna dulmino oo addoommada ilaahay dulmino iscafi yani bishaan hal iscafiyo يعني والعافين عن الناس والله يحب المحسنين خذ العفو يعني دتك عفي يعني قفنا أوركه وهين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ما نتي يوم القيامة وحبت بهذا مال يعرو احترم يسو قلب حاسد نمو يحقدي يمارك كحارن وبدعة كحارن والشرك كحارن قلب الصافي أيا ما نتي يوم القيامة بهذا يعني عداود يحقدي يحسد قفنا لابتها وهنا عفي هذيك وخيرهم الذي يبدأ السلام إلهي وحن كبرينا أنت نباتسن إلهي نباتد إنه كقاضو أنت كربسن إلهي كربد إنه كقاضو أنت مروكسن إلهي سبحانه وتعالى مروكت إنه كقاضو كلمة دي أنت سيكو إكتاي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته